السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا كورس كان فرسمة بابورتا waxaan u socday cutubkan shanaad insha Allah casharka ugu dambeeyay oo cutubka shanaad casharka ugu dambeeyay sidoo kalena casharka ugu dambeeyay kooraska waxaan uga hadli doonaa muraajaco guud waxaan ka soo hadli doonaa wixii kooraska ku soo qaadano dhan insha Allah casharka waxaan soo jeedinayaa maxamed xarsi farax wixii jawaabana waxaan ugu soo celin kartaan emailka shaashadana ka muuqda kooraskan waxaa kala socotaan Somalism Online Academy casharkani koowaad ama cutubka koowaad casharkan ayaan uga soo hadalay cutubka koowaad casharkiisa koowaad noocyada baabuurka wax badan baa ka soo sheekeynay in badan baa soo falaqaynay laakiin waa soo koobana hadda baabuurta marka la qaybiyo waxaa laga eegaa dhinacyo kala duwan tusaale ahaan iyadoo laga eegayo qaab gudbinta matoorka qaab gudbinta awoodda matoorka qaabka awood u gudbinayo mar asagoo labada taayirada hore u gudbinayo mar asagoo taayirada dambe u gudbinayo mar asagoo afarta taayirba gudbinayo qaab muuqaalkiisa iyo nidaamka shidaalkiisa intaas yani waa loo kala qaybin karaa baabuurtu waxay u kala xawaaro dheereeyaan hadba inta baston ay leeyihiin baabuurku intuu gaari ka baston ma badan yahay oo ka xawaaro dheereeyayo in badan buu socon karaa makaanikada baabuurtu sidaan soo sheegnayba waxay u qaybsantaa saddex qaybood boodiga oo qaybta ugu weyn oo gaariga ah caqaayadaha oo daboolka ah wareegyada oo ah qaybta gaariga socodsiisa saddexdaas aan soo xusna ayaa ah inta loo qaybiyo gaariga marka dhanka farsamada gacanta laga eegayo dhanka makaanikada marka laga eegayo saddexdaas gaariga loo qaybshay motoorka sidaan soo sheegnayba waa barta dhalisa tamarta baabuurku uu ku soconayo motoorka gaarigu waxa uu ka saaran yahay qaybaha hore ama qaybaha dambe ee gaariga motoorku awoodda waxa uu gudbiyaa siyaabo kala duwan tusaale ahaan motoorka mar uu awood u gudbinayo taayirada hore sidoo kale mar uu taayirada dambe u gudbinayo ama mar uu gudbinayo dhammaan taayirada baabuurka motoorka gaariga wali kusoo gudi jirnaa motoorku waa shayga keena awoodda gaariga ku soconaya sida hore usoo sheegnay motoorku waxa uu u qaybsamaa saddex qaybood oo qayb waliba ay ka kooban tahay qalab u gaar ah shaqo isku xiranna way qabtaan saddexdaas qaybood waanaga soo sheegnay motoorka qaybta ugu sarreysa waxaa la yidhahdaa testato qaybta dhex waxaa la yidhahdaa bloco qaybta ugu dambeysana waxaa la yidhahdaa setocob qaybta testatada oo soo sheegnay agabka ku xirmada sida dhabantii hawada oo kale balaagyadii oo kale kulbeerkii oo ah daboolka testatada daboola sidoo kale waxaan soo sheegnay blookada agabka ku xirmada sida kareenkii galaasyadii bastomadii agabkaas dhan baa soo sheegnay setokobada anaga sheegnay ah meesha motoorka ugu hooseysa waana halka uu olyada gaariga ku kaysan tahay bastomadu waa meesha dhalisa awoodda motoorku soo saaro yani bastomadu waa meesha koobaad oo awoodda motoorku yani gaarigu ku soconayaba ay kasoo bilaabato dhammaan bastomadu waxay u qaabaysay wax ay qabtaan afar shaqo isku mid ah anaga soo sharaxnay yani bastomadu afartan shaqo bay qabtaan way isweydaarsadaan qaadasho cadaadis gubasho iyo qashin saar bastomadu waxay iskula shaqeeyaan si isdhaaf ah tusaale ahaan bastonka koowaad wuxuu la shaqeeyaa bastonka saddexaad bastonka labaadna wuxuu la shaqeynayaa bastonka afraad olyada baabuurka nidaamka olyadu waa nidaam saliidda lagu gudbinayo qaybaha wareega ee motoorka si looga hortago in aysan dhicin islisid biraha dhexdooda ah olyadu waxa ay ku kaydsan tahay setokobada motoorka waxaana kasoo qaadaa bam gaarsiiya meelaha looga baahan yahay olyadu waxay u qaybsantaa mid motoorku isticmaalo iyo mid cambiyo isticmaalo sidoo kale waxaa jirta olyada cambiyo olyada candhooyinku isticmaalaan ayaduna jirta horeba usoo sharaxnay olyooyinka shidaalka baabuurta nidaamka shidaalku waa hab shidaalka lagu soo qaadayo taangiga shidaalka laguna gaarsiinayo bastomada intaas yani in taangiga ama kaydka uu ku jiro shidaalka laga soo qaado la geeyo meesha gubashada oo bastomada ah ama galaasyada ayaa la yiraahdaa nidaamkaas dhammaystirankiisa waxaa la yiraahdaa nidaamka shidaalka baabuurta
shidaalka baabuurtu isticmaalaan waa noocyo badan yahay, laakiin kuwa laga isticmaalo inta badan ama dhulkeena hore kuwa laga isticmaalo waa naafto iyo baasiin, yani batrool iyo diesel keliya laga isticmaalaa dalkeena. baabuurta isticmaasha batroolka waxa ay isticmaalaan laba matoor oo mid ku shaqeeyo irbado midna ku shaqeeyo kaalbeed. hore usoo sharaxnay agabku ku kooban yahay matoorka irbadaha iyo agabku ku kooban yahay matoorka kaalbeederka. matoorka kaalbeederka kaalbeederka ku shaqeeya waxa uu ahaa matooradii hore, halka matoorka irbadaha ku shaqeeyana uu yahay mid casriga cusub lasoo saaray, waana matoor isticmaala maskax. matooradii hore waxay isticmaali jireen oo batroolka ahaa kaalbeeder, halka matooradan cusub oo casrigan soo baxayna isticmaalaan irbado ku shaqeeya maskax ishagta iyo ismaamusha. matoorka saddexaad kaas oo isticmaala naafto waxa uu asaguna isticmaalaa jigtaro, waana uu ka duwan yahay labada matoor ee isticmaala shidaalka batroolka. matoorka saddexaad oo ah kan aan soo sheegnay oo naaftada hore si fiican ugu soo sharaxnay, yani wuu ka duwan yahay labada matoor oo kale, waayo kan shidaalkiisu wuxuu ku dhamaystirmaa qaab caburin ah, qaraxuna wuxuu ku dhacaa qaab cadaadis ah oo la siyaadinayo kulka naaftada iyo hawada. waana sidoo kale soo sheegnay naaftada hawada waxay ku qasmataa marka qaraxu dhaca kadib. matoorka naaftada sidoo kale waxaan kasoo sheegnay waxay ahayd inuu ka guux badan yahay matoorka batroolka, taasoo keenaysa guuxaasna waxaa keenaya habka qaraxu u dhacayo oo aan ahayn hab aan sinayn buu qaraxu u dhaca ama gubashadu u dhacda. haddaan gudubno nidaamka dabka baabuurta, nidaamkan dabka waxaa dhalinaya diinimada gaariga, waxaana lagu kaydinayaa bateriga gaariga si marka gaariga la daarayo uu u kiciyo. yani si gaariga marka la daarayo loo kiciyo, dabka wuxuu usii keydsan yahay bateri. gaarigu hadduu bilaa bateri yahay ma daarmay, laakiin hadduu daaran yahay gaariga bateriga waa laga saari karaa. gaarigu haddii uu bilaa bateri yahay ma daarmay sida hore u sheegnay, laakiin hadduu daaran yahay bateriga waa laga saari karaa. bareegu waa hab istaajiya ama joojiya gaariga. gaari walba inta lug uu leeyahay ayaa bareegiisuna yahay, oo lug walba bareeg iyada qabta ama joojiya ayay leedahay. yani gaarigu wuxuu leeyahay lug kasta bareeg baa qabta. systemka bareegana hore soo sharaxnay, wuxuu ka kooban yahay ilaa badalka ilaa qamamka laga gaarayo kileeshka sidaan soo sheegnayba waa hab xiriiriya matoorka iyo kaambiyaha marka la kala jaro si matoorku u gudbiyo awoodda socodka. waxaana la isticmaalaa marka gaariga gear la bedelayo. marka kileeshka la qabto waxaa istaagaya isku socodka ka imaanaya matoorka ee taayirada baabuurka aaday. yani nidaam kileeshka sidaan kusoo sharaxnayna waa nidaam fududeynaya in gaariga la gear bedelo, wuxuuna kala jaraa matoorka iyo gearbox ku kala jaraa kadib si uu kugu ogolaado inaad isticmaashid ama gaariga gear bedeshid xawaarihiisa siyaasi. sidoo kale waxaan la yiraahdo kileeshku waxaa isticmaala matoorada la xukumo ama manualka ah isticmaala, kuwa automatic ama isticmaala sanduuqa geerka ama kaambiyaha. sanduuqa geerka waxaa lagu magacaabaa gudbiyaha awoodda matoorka, waana halka ugu muhiimsan ee gudbinta awoodda matoorku ay ka dhacdo. sidoo kale waxa uu leeyahay waxqabad awood xukun. sidaan hore soo sharaxnaba gearboxka ama sanduuqa geerka ama kaambiyuhu waxuu leeyahay awood xukun, waxqabad awood xukun buu leeyahay, waana meesha awoodda matoorku soo saarayo. sidaan hore usoo sharaxnay sii gudbisa oo u gudbisa jeenka, kadibna jeenku uu sii gudbiya candhooyinkana ay usii gudbiyaan taayirada. tuulka gaariga, tuulku waa agabka lagu furfuro laguna xirxiro baabuurta. waxa uuna ka kooban yahay agab aad u fara badan, laakiin waxaan kasoo qaadanaynaa inta ugu muhiimsan agabkaas. sidaan hore usoo sharaxnayba agabka aan kasoo qaadanay tuulkaas waxaa kamid ahaa baanadihii baa kamid ahaa noocyo kala duwan. sidoo kale waxaa kamid ahaa giribyadii oo kale, shambalihii baa kamid ahaa, baanadaha noocyadooda kala duwanaa sida baanad Boston, baanad filter, waxaasoo dhan baa kamid ahaa, baanad black baa kamid ahayd. waxaasoo dhan hore usoo qaadanay, dib ugu laabamana. nidaamka qaboojinta matoorka, haddii asagana dib u laabano
waa nidaam biyuhu ay ku dhex marayaan balookada matoorka ayaga oo qaboojinaya galaasyada meesha gubashadu ka dhacayso ay qaboojinayaan biyaha kulul ee matoorka waxay dib u laabanayaan radiatooraha halkaas oo dib lagu qaboojinayo yani nidaamka biyaha matoorka lagu qaboojinayo ayaa la yiraahdaa nidaamka qaboojinta matoorka biyaha waxaa qaboojiya sidaan soo sharaxnayba hawada ay marawaxadu soo nuugaso biyuhu markay radiatooraha kulul waxay uga soo daadanayaan hoos beebka sare ay kusoo daadanayaan waxay sii marayaan beebabka yararka ah ay marayaan hoos ba u degayaan ayagoo ay hawadu qaboojinayso hawada inay qaboojinayso waxa u sahlaysa shinidaas ku samaysan beebabka dhexdooda ku jirta u ogolaanaysa in hawadu si yara oo kusoo marta aysan hore usii dhaafin kadib biyihii oo qabo waa hoos beebka hoos tagaya kadib waxay ku laabanayaan falaashta biyaha waxay u bamgaranaysaa balookada iyo meelihii looga baahnaa inay qaboojiso gaarsiinaysa cilladaha ku dhaca gaariga cillad waa in shayga uu qaban waayo shaqadii loogu talagalay ama sidii laga rabay si ka duwan uu u qabto cilada baabuurka waxa ay ku dhacaan dhammaan inta shaqaysa ee gaarigu koobay cilladaha dhan waxa ku dhaca gaariga meel kastoo gaariga oo shaqaysa ku dhacaysa baarista cilladu waa hab ama waddo la raaco marka la baarayo cillad taas oo kuu sahasha in aad si fudud u hesho cilladda aad baarayso dabadeedna aad u xaliso haddii aadan aqoon habka loo baaro cilladaha waxaa dhacaya in aadan helin cilladda aad baarayso ama aad weydo shaygii si qaab khaldan ama aadan u geysan dhibaato hor leh waa inaad barataa habka cillad baarista waa inaad baratid inta aadan shayga cillad ka baarin gunaanad kooraskeena oo ka koobnaa ciwaanadan shaashadeena ka muuqda noocyada baabuurka makaanikada baabuurka matoorka baabuurka oliyada shidaalka dabka bareega kileeshka kaambiyaha tuulka baabuurka qaboojinta matoorka cilladaha ku dhaca baabuurka iyo baaristooda waxaan kusoo gabagabeynaynaa intaas aad baa umahadsantahay intii ka faa'iidaystay oo casharka ugu dambeeyay nala soo gaartay aad baa umahadsantahay insha allah casharkeena ugu dambeeyana intaas ku ogyahay kooraskeena intaas ku ogyahay insha allah ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iidaan wixii macluumaad siyaadaan insha allah emailkaga la soo xiriiri kartaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu